kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena bilan wararka maanta aan idiin haynana waxaa kamid ah 127 dagaalame oo ka tirsan ururka al-shabaab oo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ay ku dileen dagaalada ka socda gobolka Hiiraan iyo sidoo kale Galgaduud madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay furitaanka shirka golaha guud ee qaramada midoobay iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo saxiixay laba sharci oo doorashada Galmudug saameynaya markale ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Bilan Radio waxaan ku bilaabaynaa dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dileen 127 ka tirsan ururka al-shabaab ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda ee dadka deegaanka ah ee hubka qaatay ayaa wali waxa ay howlgalo ka dhan ah ururka al-shabaab ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale Galgaduud taliyaha ciidanka dhulka General Biixi ayaa sheegay in intooda badan laga saaray al-shabaab deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan soona afjarmeen sidoo kalena ay socdaan howlgalada deegaanada gobolka Galgaduud looga saarayo ururka al-shabaab taliyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidanka xooga dalka iyo kuwa macawisleyda ay howlgaladan ku dileen in ka badan 127 dagaalame oo ka tirsanaa ururka al-shabaab isagoo uu u mahadceliyay ciidanka xooga dalka iyo sidoo kale xogaga macawisleyda ah ee dagaalka adag kula jira ururka al-shabaab gulufka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda Galgaduud iyo Hiiraan ayaa sababay in al-shabaab ay isaga baxaan dhowr deegaano ah oo ay horey uga talin jireen waxaana dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay ka go'an tahay in meelaha dalka ay ka joogaan in ay ka saarto dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qayb galay furitaanka shirka golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay furitaanka meertada 77 ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo looga areensanayo yareynta saboolnimada iyo xasilooni darrida horumarada waxbarashada shaqo abuurka dhalinyarada xal u helida musiibooyinka dabiiciga ah iyo sidoo kale xuquuqda dadka la haybsooco madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa soo bandhigi doona aragtida dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xasiloonida iyo nabadda dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada wax ka qabashada abaaraha iyo gurmadka degdega ah iyo dhammaan caqabadaha ay la tacaalayaan shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shucuubta gobolka Geeska Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisa ayaa ka wada golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo lale ku aadan aragtida iyo qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ee la xiriira la dagaalanka saboolnimada iyo argagixisada kuwaas oo shacabka Soomaaliyeed ay kala soo kulmeen dhibaatooyin xoogan haatan la joogo xilligii laga gacansiin lahaa dawladda Soomaaliya in ay dhibaatooyinkaas ka samata bixiso dadkeeda iyo guud ahaan Geeska Afrika madaxweynaha ayaa lagu wadaa in kulamo gooni ah uu la yeelan doono madaxda dalalka ka qayb galaya meertadan hogaanka hay'adda iyo ururada caalamiga ah ee ka qayb galaya meertada 77 ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay si uu u adkeeyo danaha iyo doorka dalkeena uu ku leeyahay fagaareyaasha caalamka ugu dambeyntiina madaxweyne Qoorqoor ayaa saxiixay laba sharci oo doorashada Galmudug saameynaya madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa ka qayb galay munaasabada xiritaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Galmudug munaasabadan oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka xalaliyaha guud ee Galmudug golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo marti sharaf kale madaxweyne Qoorqoor ayaa saxiixay laba sharci oo kala ah sharciga xisbiyada iyo sharciga guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka sida uu madasha ka sheegay Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa sheegay in Galmudug ay ku tallaabsatay wadada dimuqraadiyadda lana diiwaan gelin doono xisbiyada guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena bilan waa naga intaas daawada waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad nala joogto ilaa iyo dhamaadka waxaan kaga mahadcelinaynaa si gaar ah fadlan sii share garee muuqaalkana like saar si uu saaxiibo badan u gaaro mahadsanid